ويدا وحوم به إخواني الصدقة عجائبتي هذا وحكمه هو مركز مقاشيد نفط هذا وحي دمع عيسى وحك صدها شيئنا بحس وحقيقة وين مضنتها قفك وحو صدقيستو وحك بدن با إلهي ugu bedela $1 hadaad bixiso $10 ba Ilaahay kugu bedela xaqiiqo way waxa daliil u ah Aisha radhiyallahu anha gabadha muslimka ay bal dhageyso waa ummul mu'miniin waa qofka aad rabto ayadoo kale inaad noqoto oo jannada la gasho maalmaha kamid ah ayadoo sooman oo gurigeeda ay yaalaan 2 xabo oo khubus ah waa 2 xabo oo canjeela ama chapati ama rooti oo taqaanaan ayaa miskiin ba guriga ku soo garaacay gabar khaadimada la joogtay way albaabka uu fur waayo way furtay waa miskiin sayta xabad si hal bay siisay xoogaa kadib baa qof kale oo miskiin u soo garaacay sayta waayo sayta waa miskiin kale sayta xabadka kale si sayta yaa ummul mu'miniin maalin walba waxaad haysato intaad bixiso ya hadhowna waxaad weedaa waxaad ku afuraysaa sayta adu iska daayay si xabadkii bay qaada way siisay xoogaa kadib ayaa qof kale albaabka soo gargaraacay bal fiiri ma miskiin kala hadii miskiin kala maxaa siin oo saddexaad albaabka taagan gabadhii baa albaabka furtay waxa taagan nin adoon ah oo wuxuu wadaa dabaq saxan weyn oo neef ari ah waxa dul saaran hilibkiisa la shiilay barbecue anagu naqaana sagdan la solay oo rooti dusha ka saaran yahay tira badan markaasuu wuxuu yiri ehelkayga reerkayga waxay ugu dhaheen ummul mu'miniina ugeeha ku afurtay waa hadiyad markii gabadha ay soo qaaday Aisha intii qasashay waxay tiri cun wa khubzun khayru min khubziki wa khubz ka khayr badan khubzkaaga iyo cun ilaahay agtiisu keenay ilaahay baa soo diray tabaaraka wa taala fadlka fiir bil ajiba wa Aisha labaday haysatay bay bixisay intaas oo rooti ay hilib loogu bedelay hadaa dhibaato ku haysato ama faqri ku hayo ama waxyaraan ku haysato Aisha ku day wax haysatay bixi wax ka badan ba ilaahay ku seen waxyaabaha صدقه سميسه waxa kamida waa mas'alo aan islaayahay wallahi maanta dad badan oo muslimiin ah u baahan daawu bardaakum bisadaqa qofka jiran sadaqa ku daaweeya waliga xadiidka nabiga intaad maqashay sallallahu alayhi wasallam asoo qof ka jiran yahay ma u qasaday inaad ku daaweysid sadaqo sida nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa dhacday imaam al-hakim abu abdullah al-hakim qisooyin kan sheegay inta badan qofka raba وحكى أخرسان كرا كتاب لها من عجائب الصدقة وعجيبة أو الصدقة شيء عجيب وغشاكيني عبد الله يعني إمام أبو عبد الله الحاكم أي أجخذي وجهه وحكى صوب حبابه مركز اسبتاع اختار بوتلي وحكى السوسني ده هو اللواعي ما لها كاملة أسوي الدرس آخرين يوجه عامي والشيخ إباتا كهيسته أيها وحا أركي وحصوق لمساجد أبو عثمان الصابوني ودرس كأخرين شيخ عقيدة عانك كوها كنت كعقيدة هي فرق بدع إن لا دجالهم مركز صاق قريب وحجري إمام أبو عثمان الصابوني وحجري ادعي إمام أبو عبد الله الحاكم إنه إلهي عافية تذكر واحد إلهي عافية أصله الصبح جدا درس حديث شيخ آخرين أيها وراق وهرتي صلى الله عليه وسلم وراق ذي وفري وحكوا قرن قبر بقى واحد إلهي صار مسلمة حالي بقى وحنكر رياض النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كأركي عجيب مكاسو النبي وحيويري وحاد كتر هذا أبو عبد الله الحاكم وحاد كل هذا يوسع الماء للمسلمين مسلمين تبيها السية بيها صدقيس شيخ الدرس يجيبوا دمية مركو دمية أيوه كعي كوريس الدرب يصو حقا قضي بركد انتوني من حماليالا ويالي بيالا وشوي درس كيبا كعبي والله تدوبري كدب بوغيه ويدمادين ويبابين عجيب وي ما أنت قفك مسلم كوحاه هيست كانسر وحاه هيست حنون وحاه هيست إيكر وحاه كوهي حنون كست دايبيتك سنكربا كوهيسا حنون كستا كوهي حنون ما كوهي حديث كالنبي انتاد آمن تداو مرضاكم بصدقة بالفيري صدقة بحصو بيحي إلهي أصوه الداوية بالأركي دونتا وين عادي مرة بذن بين عادي قصوين حديث أبعد دعي وهذا وقتها نجوغا وحانا عادي قصة عجيبة laba cunug oo yar oo walaalaha ciyaaraya ayaa mid kamida isha waxa ka galay qori waxba ku jabay isha way dhacaamaysaa waxba ku jira dhaqaatiirtii loo geeyay oo dhan way ka baqeen isha meesha madoway dhakhtarkaas wuxuu leeyahay anu cajiib ma taaban karo waa khatar ishaan haddaan taabto isha uu beelaya cunug
hooyadii way iska oyday way dhibaatootay cunugii ma seexan karo indhihii biyaa ka da'aya maalintii dambe waxay maqashay nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidkiisa daa'u mardaakum bisadaqa ma nabigaa yiri sallallahu alayhi wasallam arrinka waa inaan fiiriyo sadaqay bixis sadaqa weyn bay bixis waxay tiri usbuucii dambe cunugii baan check up dhakhtar geeyey dhakhtar baa wuxuu igu yiri bay tiri bal anaa ku nasiibsanayo cunugaan baroobeynaya inaan qabo markaasuu markuu wiisitaynayay ayuu ishii saas u taataabtay wixii oo cadda furduq ka soo yidha bannaanka ku soo dhacay allahu akbar markaasuu dhakhtarkii wuxuu yidhi wixii way soo baxeen gabadhii waxay qalbigeeda ku jirta daawu mardaakum bisadaqa nabiga sallallahu alayhi wasallam cajiib weeye ka faa'iidayso akhi jiraa ku haysta dhib baa ku haysta meel kale ha aadin waa caafimaad nabiguna baray sallallahu alayhi wasallam waa caafimaad cibaado ah ka faa'iidayso isku day samee waad ku caafimaadsan insha allahu tacaala haddaad ku caafimaadi weydid xoogaa iimaankaagaa hooseeye eh intaad iimaanka xoojiso ood aamintid xadiidka nebiga samee waad ku daawoobaysaa xaqiiqo wey arrinkaas arrin kaloo cajiib ah oo sadaqadu leedahay waxaa weeye arrinkaasi sadaqadu waxay celisaa balaayooyinka iyo musiibooyinka maanta musiibooyin baa dhacaya badan carruurta musiibaa ku dhici baabuur baa kula gadoomi jirkaa kugu dhici masaa'ib baa soo degi dukaan baa guban reer baa isfuri oo isdagaali qof baa waxaa ku dhacaya jiro degdega musiibooyinkaa tirada badan ee dhacaya waxaa ilaahay ku difaacaa sadaqada waxyaabaa yaab kale waxaa ka mida moxamed ibnu wadaax raximahullah waa nin culimadii hore oo muslimiinta caanka ayd ka mida ayaa maalin maalmaha ka mida isagoo darsi xadiida akrinaya oo fadhiya ayaa waxaa usoo galay nin orday markaasuu wuxuu ku yidhi cunugaagii yaraa ayaa waxaa ku dhacday taayir baa beer lagu falayay beerta taayirada waaweyn oo loo ujido oo lagu falayo ayaa ku dul dhacay sheekhii wuu fikiray wuu aamusay xoogaa wiilkii ardayga ahaa kitaabka akrinaya wuxuu yidhi wad darsiga sii wad wiilka darsiguu iska waday sheekhu iska aamusay waxba ma dhihin qof haddii la yidhi ilmahaagii baa balaayo ku dhacday oon kicin oon isbedelin oon qiiroonin oo aan ooyin oon nixin ka war darsigii markii uu xoogaa socday ayaa nin kale ordayaa soo galay markaasuu wuxuu yidhi abshir bishaarayso moxamed ibnu wadaaxow wiilkaagii taayirkii waan ka kicinay waxba ma gaarin maradiisii unbuu la haray maradii unbaa ku dhegtay taayirkii xabad wiilkii ma gaarin ninkii sheekhiyaa wuxuu yidhi awalaan yaabayey awal ayaan yaabanaa saaka waxaan arkay buu yidhi wiilkaa yarka ah oo albaabka maskiin soo gargaraacay xabado khubus oo rooti ah siinaya markaad hadda idhahdeen buu yidhi dhibaataa ku dhacday waxaa isu kay qaban weyday saakuu sadaqa baxsaday haddana musiibaa ku dhacday arrinka asalkuna wuxuu ahaa asadaqatu tadfacu lbalaaya sadaqadu balaayooyinkay celisaa marka wuxuu yidhi waa isu kay qaban weyday laakiin waan fahansanaa inaan wax ku dhacayno qofkaas iimaankaa fiir akhi haddaad sadaqa baxsato ood maanta wax sadaqaysato musiiba kuma dhacaysa dhibaata kuma taabanayso ma ku daraa qiso kale insha allahu tacaala waxaad moodaa qisooyinka aad bay u badan yahay qiso kale a idinku daraya oo cajiiba waxaan rabaa qofka muslimkaa inuu bal dareemo fadliga ay sadaqadu leedahoon daawo ka raadin kitaabka min cajaa'ib sadaqa sheekha ayaa wuxuu qoray wuxuu yihi anoo meel nin macalimiinta ka mid oon ku kalsoonaa wuxuu ii sheegay buui anoo meel taagan baabuurta laga raaco ayaa wuxuu yihi waxaa ii yimid cunug yaroo ordaya oo miskiin ah markaasuu ya cam adeero waxaad isiisaa 10 riyaal 5 riyaal wax un isii aan khubus ku gato maxaad ku gadanaysaa shawaarmaan ku gadanayaa 5 riyaal baa intaan soo bixiyaan siiyey 5 riyaal baa intuu aad u farxay buu la orday buu wuxuu ku galay makhaayad buu galay wuxuu anoo cunugii weli ka fakeray cunugii maskaxiisu ku jira ayaa wuxuu yihi waxaan anigii 4 kale yaa baabuur taxi asla kiraysanay wadamada muslimiin taxi waa la soo sheer garaya markaan xoogaa soconay ninkii taxi laha baa i caayay وني هذه من حباتها أضاء كلام قاضي يقدر تكسر وني أنا محل قرتها وني خبيث باطل من حباتها واستقال لي وحاربي وهاي العكت يعد وكهر ياي العكت ويسوع اليوم ساقته وسول له جاي ماشي عن تكسر كسر عني بعني أنا وحي حناقسم واستشيني يعني ماشي إمت باقول كلام صار والله وحيد ما كان حوجا كذب سعني أيام وحن أنمت بابور كيو انتو قدومي أو وجبتي أفرتين يدرولكي شنتي بكل إنتين وحن فهمي ويدي صدقة يدي بقى يقصوا صارتي يقربت مصيبة راس أخي وحال حصتها ما أنت حبا صدقة يسنة أدو موجد
waxaa dhici karta shil baabuur inaad kaga badbaadid musiibo carruurta inaad kaga badbaadid jirro xun inaad kaga badbaadid dukaankaa oo guban lahaa inaad kaga badbaadid waa security way waxaan hadda la yidhahdaa life insuransiga oo la geli dadku galaan way waa insurance way waxaad noqonaysaa qof ilaahay uu xifdiyey waxaan kusoo khatimayaa kelimadan hadduu qofku wax haysto ama uu xili karo oo wixii uu ku bakhaylo ilaan sadaqada maalka ilaahay baa bixiya ilaahayna dadka uu gacantooda geliya wuu imtixaamaya dadku qaar baa lacag haysta middaa wax yar haysta middaa wax badan haysta qof walba waxaa rabaa wuxuu haysta wax la-eg inuu bixiyo hadduu bixin waaya maxaa dhacaysa waxaa dhacaysa inta lagaa qaado ayaa mid kale oo bixinaya la siinaya ilahi wuxuu yidhi wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum uma laa yakunu amhaalakum haddaad jeedsataan ilaahay wuxuu idinku bedelan qolo idinka fiican oo idinka oo kale aan ahaanayn oo idinka fiican qisaan ku xasuusinaya nin ayaa gabar aroosay habeenkii ugu horreysay arooska ayagoo casho dhigtay oo aad u faraxsan waa habeenkii la yidhaahdo innagu waxaan dhahnaa gabdho waxay dhahaan caawa habeenkaygii oo habeenkii aad ku lahayd nolosha way oo faraxsan ayaa albaab kale miskiin kusoo gargaraacay gabadhii baa xagga albaabka xigta way istaagtay oo waxay tiri waayo suuye qof miskiin oo tuugsanaya way wax siiya markaasay tiri waa miskiin tuugsanaya suuye baxdhe cayri saacadaan oo kale iyo albaabada laisku soo garaaca marqaankiiba ilowsiyey iyo farxaddii wax walba gabadhi waxay tiri niho orod naga tag wax ma ku siinayna bax naga tag ninka guriga lahaa wuxuu kii soco bax ninkii waa iska tegay isagoo aad u niyad jabsan waxaa muddo kadib ninkii xaaskiisa waa iskhilaafeen muddo la isqabay waa la iskhilaafay waa la isdagaalay reerkii waa burburay ninkii naagta waa kala tagay waa isfureen ninkii buufis baa ku dhacay wuu waashay magaaladu iska galay isagoo waalan isagoo tuugsanaya oo ninkii waalan gabadhii intay ciddadii ka baxday oo iska joogtay baa nin kalaa guursaday gabadhii iyo ninkeedii dambe oo hameen isla cashaynayo guri fadhiya ayaa albaabka lagu soo gargaraacneen barkii say way istaagtay way soo noqotay waxay tii waa nin miskiin oo tuugsanaya markaasuu yidhi maasha allah ma miskiin baa caawa noo yimid ma ilaahay baaba dadkii naga soo doortay ilaahay baa nagu soo aadiyey cuntadaan sii lacag buu soo wixi lacagtaana ugu dar maxaan kuu qaba naad u baahan tahay dheh nin miskiinka waxaa la siiyey raashinkii iyo lacagtii isagoo faraxsan markuu jeedsaday ayaa gabadhii waxaa rabay inay farxdo soo maa iyadoo ilmaynaysa bay soo laabatay ninkii wuu fiiriyey wuxuu ku yidhi maxaad la ilmaynaysaa walaalay kugu dhaco la ooyeysaa markaase waxay tidhi waxaan la ooyayaa ninkii miskiinkoo albaabka taagnaa waa ninkii hore oo iqabi jiray fiir waa ninkii hore oo iqabi jiray waxaana ilaahay ku ciqaabay yaan u malaynayaa hameen baa isaga oo saan oo kale ila cashaynaya ayaa miskiin albaabka soo garaacay markaasuu si xun ula hadlay ninkii waan isfuray wuuna waashay miskiinkiina hameenka si xun buu u cayriyey ninkii qabay gabadha ayaa ooyay isaguna wuu ilmeeyey markaasay tii adigana maxaa kugu dhacay si waxaan la ooyayaa ninka hameenkaas tuugsanayo albaabka gargaraacayay anigu ahaa fiir kanaa reerka qabay sadaqadii buu diiday maalkiibuu ku bakhaylay waa la waalay reerkiibuu ka tegey mid kale oo sadaqaysta kiibaa yaa fiicnaaday oo wax helay oo degay ilaahay dejiyey naagti baa ilaahay u guuriyey wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum uma laa yakunu amhaalakum akhi ukhti walaalka muslimkaa gabadha muslimadda ah haddii maanta ilaahay shilin ku siiyey oo ilaahay wax ku siiyey oo aad shaqaysatid oo aad wax heli kartid waxaa jira dad badan oo baahan oo masaakiin waxaa jira hadda masaajidda way baahan yihiin dadkii ehelku way baahan yihiin meel walba baahi baa ka jirta wax sadaqayso sadaqana waxaa ugu fadli badan midda la siiyo sadaqa jaariya ku sadaqayso wax kastoo awoodi baxso insha allahu tacaala ilahay waxaan ka rajaynayaa inuu aniga iyo idinka sadaqadana jeclaysiiyo ilaahayna sadaqadaan baxsanay inuu ilaahay usan naga dayicin wixii kurba iyo dhibna haysana ilahay inuu nagaga faydo wasala allahuma calaa nabiyina maxamed wacala alihi wasaxbi wasallam